السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين صاحبي لمانتنا مركز joogtaan soo dhawaada maanta waxaan baranaynaa sida YouTube casharka aad rabto marka aad wax baranayso looga baarto dabcan way kala duwan yihiin casharadu dadku wax una iska qoraan maahina ma garanayaan habka yani YouTube sida saxda ah ee waxa rabto markii aad rabto inaad wax barato loo raadiyo so just YouTube ayaan click leeyahay haddii aad rabto waxaad cashar ahaan inaad u qaato qoraalkooda ayaad waxa raacinaysaa tutorial ayaad raacinaysaa you have to know that so just waxaan qorayaa waxa loo yaqaano maxaan ku yiraahdaa waxaan qorayaa web designing tutorial baan qorayaa okay web designing tutorial marka web designing tutorial for beginners baan leeyahay web designing tutorial for beginners I hope oo ii soo baxay marka waxaan u jeedaa mid oo 17 daqiiqo ah mid 10 saacadood ah ayaan u jeedaa haddii aad rabto 20 daqiiqo wixii ka badan inaad fiirsato wax ku dhufanaysa meesha filterka marka ku dhufto horta waxa leedahay this year sanadkan wixii soo baxay dalbanaysa this year wixii ku soo baxay sanadkan waa soo dalbatay then waa ku celinaysaa meeshan ku qorantay over 20 minutes ayaad ku dhufanaysaa ama waad si dooran kartaa xitaa 4K aad dhigi kartaa HD aad dhigi kartaa location ka xitaa waad dalban kartaa wadanka rabto in waxaasi macnaha muuqaalkaas aad ka hesho so just web designing for tutorials web design tutorial for beginners to one yan leeyahay marka kan markaan ku dhufto dabcan for sudden waxaan helayaa casharkii oo dhameystiran ayaan helayaa isagoo so very important ah okay so halkan waxaan ku baranay sida video aad ugu baaran karto nooca rabto in the internet or YouTube waliba marka cashar ahaan aad rabto waxayna u qaato maaha something entertainment wax madadaalo iyo wax gaagaaban iyo maya wax barasho haday tahay tutorial wayna ku dartaa markaas ayaad helaysaa wixii saxda ah hadda waxaan leeyahay dabcan waxaan leeyahay English tutorial for beginners and English tutorial for English grammar course for beginners kan 2 saacadood buu soconayaa marka halka waxaan leeyahay this year sanad kasta midka ugu dambeeyo waxa soo baxay ayaa ugu wanaagsan sababtoo ah aragtidii hore iyo midaan isku mid maaha so gabadhan oo kale waxay leedahay learning English for beginners my top tips ay leedahay let's click on okay no so daban leenahay iyaduna waxay hayso so if you want to learn English you can do it maamada waa ujeeda halkan bay cashar ku qoratay so I hope inaad waxa waay aad u fahmaysiin aad iyo aad u mahadsantihiin intaan kulmi doono casharkan ka xigo waxaan leeyahay si nabadgelyo